السلام عليكم أصحابتا دمان meel kasta aad joogtiinba waan idin salaamay kusoo dhawaada sheekadii Saxarla qaybta 16aad qaybteeni hore waxay noo joogtay Saxarla oo wiilkeedii Bilaal ahaa u soo labistay kadibna ay soo aaday iyadoo ay la socdaan Xaaji Buraale iyo saaxiibkiis iyagoo u socda Hiilweyne waa halkii Cali Aboor uu ku xareysnaa qaybtan 16aadna waxay ku bilaabanaysaa waxa ay sii socdaanba waxay akhritaankii gaareen xiradii Hiilweyne ninkii ay la balameen waxa uu sii sheegay inay gudaha xirada gaarigooda ku soo galaan waxa kale oo uu kulana u sheegay inuu askarta waardiyaha ah ee albaabka jooga ku balamiyay oo ay soo deyn doonaan markii ay albaabkii xirada soo joogsadeen ayaa waxa xagoodii u soo dhaqaaqay askari qori ka ah wata oo aad moodid in tuutaha uu gashan yahay uu ka buuran yahay oo caata ah xabad sigaarana afka ugu jirto demi gaariga ayuu ku yiri cod dheer oo hanjabaad ay ka muuqato isagoo Xaaji Buraale la hadlaya xageed u socotaan ayuu sii raaciyay isagoo gaariga gudihiisa sii qoransanaya oo eegaya inta qof ee gudaha ku jirta adeer waxaan la balansanahay Korneel Kaashe Xaaji Buraale ayaa hadal gaaban ugu jawaabay si aanu askariga uga xanaajin sug ayuu ku yiri intuu dib ugu noqday xafiis yar oo albaabka xirada laga gal ku yaalay waxa qolkii ka soo baxay Saajin Buule oo askarigii hore aad uga daaweyn sidii kii hore intuu gaarigii soo dhinac taagay ayuu weydiiyay cid ay u socdaan Xaaji Buraale ayaa u sheegay inay la balansan yihiin Korneel Kaashe intuu gaariga gudihiisa qoonansaday si uu u hubiyo inta qof ee ku jirta ayuu xagga albaabkii weynaa ee xirada u dhaqaaqay kadibna cod dheer ku yiri kafur balan ay leeyihiin markii ay gudihii galeenna waxa kaxeeyay Saajin Buule laftiisii oo tusay meeshii ay gaariga dhigan lahaayeen wuxuu ku yiri intuu u dhaqaaqay xagga xafiiskii Korneel Kaashe ha ka soo bixina gaariga inta leeyna kaga yeerayo intii ay gaariga ku dhex jireen waxay daawanayeen rag dhalinyaro u badan oo baabuurta ciidamada lagu daabulayo waxa kale oo meel fog uga muuqday kuwa la tababarayo oo marba dhinac loo eriyayo intii ay labada oday Xaaji Buraale iyo kulana ay ka sheekaysanayeen dhibaatada dadkan la soo qafaalay haysato iyo cawaaqib xumada ee keeni karto dagaalkan dawladdu abuurtay Saxarla waxay indhaheedu ku maqnaayeen nimankii baabuurta lagu guurayay iyo kuwii fogaa ee la tababarayay si ay uga dhex aragto Cali waxa ka soo wareegatay 2 saacadood markii ay xirada soo galeen Bilaalna hurdo ayuu la dhacay waxa akhritaankii u yimid Saajin Buule wuxuu u sheegay inuu Korneel Kaashe la kulmay oo sheegay inay marti sugayso waxa kale oo uu sheegay in Korneelka laftiisu uu aad mashquul u yahay oo uu isagu ku soo balamiyay inuu arrintan xalliyo oo ninka ay raadinayeen uu tuso wuxuu weydiiyay magaca ninka ay raadinayaan kadibna wuxuu u dhaqaaqay xagga raggii la soo qafaalay lagu hayay mar kale Saajin Buule wuxuu maqnaa muddo saacad ku dhow iyagoo oo meeshii ku jactaday Bilaalna hurdadii ka kacay ayuu soo laabtay isagoo Cali Aboor iyo 2 askari oo hubeysan ay dhinacyada kaga jiraan akhritaankii way soo heleen Xaaji Buraale oo uu hor arkay ayaa yiri saxar la soo dega asalaantiini Xaaji Buraale ayaa yiri isagoo gaarigii ka degaya Saxarla oo Bilaal laabta ku haysa ayaa albaabkii dambe ee gaariga ka soo degatay afka ay gacanta saaratay iyada oo la yaaban sida Cali Aboor loo bedelay iyo sida tuutaha askarta ee loo xiray qof aysan garanayn uga dhigay waxa kale oo ay ka yaabtay sida uu Sacuudiga ugu soo naaxay waayo markii hore ee uu dhoofay xooga calool ah umbul haye xoog uma buurnayn waxay aragtay nin aad u naaxay oo calool saayida ee ka soo dhacday waxaad haysataan 15 daqiiqo ee arrintiina si degdeg ah u kala dhamaysta saajidkii ayaa yiri isaga oo la hadlaya qoladii Cali Aboor soo booqatay iska warrama Cali Aboor ayaa yiri intuu Saxarla isag taagay isaga oo Bilaal wajigiisa eegaya waanu iska fiicannahay Saxarla oo indhaheeda ilmu ku soo joogsatay ayaa ugu jawaabtay u dhiib aabihiis ha salaamay Xaaji Buraale ayaa ku yiri Saxarla kaalay aabe Cali Aboor ayaa ku yiri Bilaal intuu labadiisii gacmood hore u fidiyay Bilaal oo ka baqay ayaa hooyadiis isku dhajiyay wajigiisana dhinaca kale u jeediyay wuu ka qaloonayaa Saxarla ayaa ku tiri insha Allah si fiican ayuu ii baran doonaa Cali Aboor ayaa yiri intuu Bilaal madaxa u salaxay waxa wali dhinac taagnaa labadii askari iyagoo aan wax badan isii weydiinna waxa gawaabsi ku dhawaaday 15 daqiiqo ee loo qabtay Saxarla anigu sida aan ku soo noqon doono Ilaahay baa oge waxaad raadisaa ninka la yiraahdo Diiriye Yoonis ee Sacuudiga jooga xoogaa lacaga ayuu ii hayay idin soo diro jaale waqtigii waa ka dhamaaday soo bax
mid ka mid ah labadii askari ee waday Cali Aboor ayaa yiri intuu tuutihii u gashanaa garab ka jiiday intii aan hadalka afkiisa si dhamaanba waxaa soo joogsaday meesha gaari weyn oo military oo ka mid ah kuwii ragga la soo qafaalay ee dagaalka loo wada qaadayay gaariga oo shareec weyn uu ku xirnaa oo dadka gudaha ku jira aan la arkayn ayaa waxa ka soo degay askari hubeysan oo tuutaha military gashan war soo fuul gaariga waqti ma harine askarigii gaariga ka soo degay ayaa Cali Aboor ku yiri intuu saxarla ku dhawaaday ayuu Bilaal dhaban ka dhunkaday kadibna intuu salaan u taagay saxarla oo gacanta ka dhunkaday ayuu ku yiri Ilaahay haydin nabadgeliyo markiibana labadii askari ee ilaalinayay ayaa intay labada garab ka qabteen xaggii gaariga u jiideen kadibna isagoo gaariga sii koraya ayaa gacanta ruxay isagoo saxarla Bilaal iyo odayaashii la socday nabadgeleynaya saxarla oo naxdin iyo qaraacan la adkaysan kari weyday ayaa intay dhulka fadhiisatay oo himbilowday ina keen adeer wixii Ilaahay ka dhigo ayaa arrin noqon doontaaye Xaaji Buraale ayaa ku yiri isagoo gacanta ka jiidaya isku dayayana inuu kiciyo Xaaji Buraale oo saxarla gacanta ka haya ayaa albaabkii gaariga ka furay oo ku yiri iska samir adeer samraa ayaa sidkiisa helay waxay aheeday xaalad aad u xun saxarla waxaa halkaas uga muuqatay in aayihii Bilaal uu mugdi galay intii ay dhaxda ku sii jireen waxaa sheekaysanayay labada oday Xaaji Buraale iyo Kulane oo ka hadlayay dhibaatada iyo siyaasad xumada waddanka ka taagan saxarlana kelmad ma aysan oran ilaa intii ay guriga ka gaarayeen waxay hoos ula hundurtay oohin iyadoo wajigeeda odayaasha ka qarinaysa inkastoo saxarla markii hore Cali Aboor qasab iyo cadaadis loogu meheriyay oo aysan weligeedna waali iyo miirqab midna ku gursateen haddii ay teeda ahaan lahayd haddana waxay waayihii dambe u arkaysay inuu yahay nin naxariis badan kana soo baxa xilkiisa oo wiilkiisa iyo iyadaba ugu tala jiray inay aayatiin wanaagsan ku noolaadaan inkastoo ay aad ugu dadaali jirtay inaysan u muujin wax jacayl ah Cali Aboor haddana waxaa xaqiiqo ahayd inay u haysay kalgacal aad u weyn waxay berihii dambe isweydiin jirtay in doqonnimada Cali Aboor lagu sheegi jiray ay ahayd mid dhab ah oo uu u dhashay iyo inay ahayd mid cadar duwan ay abuurtay oo ay ahayd arrin ku timid sidii iyada lafteedaba magacyada badan ee laga yaqiiqsoodo ay ugu bixisay waxay ugu dambeyntiina isku qancisay in Cali Aboor uu yahay nin degan naxariis badan afgaaban oo dantiisa yaqaana markii ay xeradii askarta ka soo noqdeen waxay gurigii soo gaareen iyadoo markaas salaadii maqrib la dukaday waxaa daaradda guriga fadhiyay asli iyo dhowr dumara oo deriska ka yimid kadib markii loo sheegay xaaladda saxarla waxaa albaabka ka soo galay Xaaji Buraale Kulane iyo saxarla oo sidii u oynaysay labada indhood xinjir dhiig ah ka noqdeen xaaji ma soo aragtay Cali asli ayaa tiri iyadoo Xaaji Buraale la hadlaysa waa soo aragnay laakiin ninkii waa la qaaday ayuu ugu jawaabay intuu kursi asli agteeda yaallo ku fadhiistay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun xagee loo qaaday ayay weydiisay asliyey meeshii ragga la haligayo loo qaadi jiray ayaa loo qaaday bal wax nagu soo qabo gaajo ayaanu ka xalanahay ayuu ugu jawaabay asli oo yaaban ayaa waxaa lagu yiri ragga la qaaday oo khayrkiisa ah ayuu wax la qabaaye cunto noo keen ayuu Xaaji Buraale mar kale yiri xaaji wax yar isuga asli ayaa tiri oo intay saxarla oo qolkeedii gashay ka daba tagtay kadibna haweenkii daaradda fadhiyay ayaa mid uga daba galay qolkii saxarla iyo asli ay ku jireen weligii ma aanan arag iyada oo sidaasoo kala noqotay waxay aheeday qof aad u calool adag oo adkaysi badan asli oo qolkii saxarla ka soo baxday ayaa tiri waxa ay dumarkii waan u akhriyaan oo isku dayaan inay samir ku qanciyaan saxarla waxay mid uga soo baxeen qolkeedii iyagoo wajiyadooda qaraacan ka muuqdo guryahoodiina u kala caraabaya saxarla waxay aheeday ruux xaafadda iyo jaarkaba aad looga jecel yahay waxay ku caan baxday naxariis deeqsinimo iyo akhlaaq wanaagsan markii waagii baryayna waxaa warkii wada gaaray deriskii iyo dadkii asxaabta la ahaa waxaana gurigii iska soo buuxiyey dad aad u tiro badan oo niyadda u dejinayay tiro badnaanta dadka guriga ku soo qulqulayay reerihii xaafadda qaar ka mid ah ayaa u qaatay in guriga geeri ay ka dhacday oo tacsi loogu tegayo qof kasta oo saxarla soo booqdaana wuxuu ballan qaaday in wax kasta oo ay uga baahato diyaar u leeyahay waxaa ka soo wareegatay 3 bilood markii la qaaday Cali Aboor deriskii iyo saaxiibadii guriga saxarla ku soo qulqulayayna socodkoodii iyo ballanqaadyadoodii isbuucii ugu horreeyay ma aysan dhaafin waxaanay soo jahay saxarla iyo xaqiiqadii adduunyada ee sugaysay waxaa dad ugu dhawaa Xaaji Buraale iyo xaaskiisa asli iyaguna waxay u ballan qaadeen
inay 2 bilood oo lacag la'aan ah gurigooda ku jiri karto haddii ay awoodi weydo inay kirada bixisana ay meel kala doonato waxaana masruufkii yaraa oo ay haysatay uga soo haray 900 oo shilin taas oo lagu qiyaasi karo inay bil kala hay karto waxaa kale oo lacag la'aanta uga darnaa welwelka ay ka qabtay xaaladda ninkeedii oo aysan ogeyn waxa uu ku sugan yahay geeri iyo nolol waxaa kale oo ay isku dayday inay raadiso ninkii Sacuudiga joogay Diiriye Yunis ee cala aboor kala balamay nasiib darrase way weyday cid taqaana oo siday ula xiriir lahayd u sheegta waxaa ku caddaatay tala adduun waxay samaysana way garan weyday haba u xumaato inay ku fikirto inay sun cabto oo isdisho taase waxaa ka hor joogsanayay jiritaanka Bilaal waxay aheeday qof aad isku lahan weyn cabsida ugu weyn oo ay qabtayna waxay aheeday inay awoodi kari weydo inay wiilkeeda Bilaal nolol wanaagsan ay ku koriso waxay isweydiisay meesha ay tegi doonto haddii ay guriga Xaaji Buraale iyo Asli ay ka baxdo jahwareerka iyo macilaanta iska daa wax kale waxay ka fikirtay inay Bilaal guriga Xaaji Duwane ku tuurto oo ku tiraahdo korsada wiilkiina haddana waxaa hor yimid xumaantii iyo xaasidnimadii ay Cadar Duwane kula dhaqmi jirtay waxayna dhaar ku martay in aysan wiilkeeda Bilaal wixii iyada la soo mariyay uusan marin iska daa wax kale xitaa haddii ay ku kalifto inay jirkeeda u iibiso oo suuqa u gasho habeen walba waxa waagu ugu bari jiray iyada oo sariirta dul fadhida oo marna ooyeysa marna fikiraysa iyadoo asbuuc kaliya uga dhiman yahay 2 bilood ee reer Xaaji Buraale u qabteen ayaa waxa goor fiid ah guriga ugu yimid 2 oday oo ay Xaaji Buraale saaxiibo yihiin iyo nin dhalinyaro ah oo la socda markii la isbariidiyay ayaa nimankii waxay u sheegeen in Xaaji Buraale oo ninka dhalinyarada ah ee odayaasha la socday uu ka soo baxsaday goobaha dagaalka halkaas oo ay isku barteen cali aboor fariina uu soo faray xaaskiisa inta uusan dhiman ka hor inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun goorme ay arintaasi dhacday Asli oo aad u naxday ayaa intay gambar ee ku fadhiday ka soo kacday oo xaggii nimanka warramaya u dhaqaaqdo ku tiri dadkii daaradda fadhiyay ayaa iyagana kulligood naxay oo mid waliba naxdin gacmaha madax saartay adeer ma aanan maqale goorme ayaa la dilay Xaaji Buraale ayaa weydiiyay ninkii dhalinyarada ahaa adeer bilba ma aanu joogin markii uu gaarigii uu la socday meenada la kacday ayuu ugu jawaabay waxaa la isweydiiyay sidii saxarla loogu sheegi lahaa adeer iga raali ahow cali wuxuu ugu dardaarmay in haddii aan ka nolol dambeeyo inaan anigu fariinta gaarsiiyo saxarla marka waxaan idinka codsanayaa inaan anigu iyada la hadlo ninkii askarta ka soo baxsaday ayaa yiri adeer fariintaada dhibaato kama joogtee waxa aan isweydiinaynaa waqtiga ugu munaasibsan ee saxarla loo sheegi lahaa geeridan naxdinta leh Xaaji Buraale ayaa ninkii dhalinyarada ahaa ku yiri adeer ma doonayno inay caawa seexan weydo marka miyaynan habboonayn inaad berrito ama mar kale oo munaasib ah u soo noqoto Xaaji Buraale ayaa yiri isagoo isku dayaya inuu ninkan dhalinyarada ah qanciyo kadibna waxaa la isku raacay in habeenkaas iyadoon waxba loo sheegin saxarla lagu kala hoydo subaxdii markii ay Asli u sheegtay saxarla sidii ay ka cabsi qabeen uguma qaracmin geeridii cali aboor waxayna u sheegtay Asli inay horay isugu qancisay inuusan nolol ku soo noqonayn waxaa kale oo ay u sheegtay Asli inay aad ugu faraxsan tahay inuu wiilkiisii arkay oo dhamanka ka sii dhunkooday intii uusan dhiman wuxuu ahaa nin aad u qalbi wanaagsan oo raxiim ah ayay hadalkii ku soo gabagabaysay maalintii labaad ayaa waxaa soo laabtay ninkii dhalinyarada ahaa si uu ula kulmo saxarla wuxuu uga sheekeeyey noloshii cali uu ku noolaa bishii ugu dambaysay oo ay wada joogeen waxaa kale oo uu uga sheekeeyey sida uu u jeclaa iyada iyo Bilaalba ee uu mar walba afka uga hayn jiray wuxuu u sheegay inuu u sido warqad uu isagu gacantiisa ugu qoray maadaama cali aboor uusan waxba qori jirin warqadii ayuu u dhiibay waxay bilowday inay warqadii akhrido inkastoo saxarla muddadii yarayd ee iskuulka seeraalaha waxbarashada dadka waaweyn ay ku jirtay qoraal ku baratay haddana markii ay soo gaartay qaybtii gabaygu ku qornaa ay ku mirgatay oo ku adkaatay kadibna ninkii ayaa gacanta u soo taagay oo ku yiri keen abaayo ku akhriye salaan diiran saxarlay safarkan u baxay soofka saadaashii aan qaatay sacbada inaan maalo iyo inaan sid ku raadsho ka samreeye sidaas qaado ragga sumcu leefayo sanbabada kuwii goysay ama sahalka loo laayay tiro sugan haddaan sheego 300 sare u dhaafe aniguna safkan joogo sahal inaan ku soo laabto sidrigayga uma sheegin mar hadday sidaas gaartay adna samir hamoogaan rabbina haydin sama yeelo
markii warqadii u dhameeyay saxarla indhaheedana ay ilmo ka daadanayso iyadoo la yaabtay ninkeeda xigmadiisa iyo aragtidiisa fog iyo sida cadar duwane isaga iyo dadka intiisa kale uga dhaadhicisay inuusan waxba ogeyn oo uu yahay doqon jaanjaan ah ayuu ninkii dhalinyarada ahaa inta gacantiisa jeebkiisa geliyey wuxuu ka soo saaray warqad yar oo dhowr jeer la isku laalaabay korkeedana dhiig qariyey intuu xagga saxarla u taagay ayuu ku yidhi hoo maxaa ku qoran ayay weydiisay waxba kuma qorno ee fur oo eeg wax ku jira ayuu ugu jawaabay markii ay furfurtay ayaa waxaa ka soo baxay 2 sawir oo dhiigii ku daatay ku kor qalalay oo midna ay lahayd iyadu kan kalena bilaal ka qaaday isagoo 3 bilood jira oo ay u dirtay markii uu Sacuudiga joogay waxaan ka soo saaray jeebkiisa markii uu dhintay kadib ayuu ku yidhi maba xusuusto goortaan u diray 2dan sawir saxarla oo weli indhaheeda ilmo ka tifiq leedahay oo shalmadeeda ku masaxaysa ayay tiri xagee lagu aasay ayay weydiisay meesha cidna lama aasee isaga iyo niman kale oo ilaa 100 gaarayay oo dagaalka ku dhintay ayaa inta god weyn loo qoday mar kaliya cid lagu gambiyey saxarla oo ay ka dhaadhici weyday aadna uga xumaatay sida foosha xun ee ninkeeda loo aasay ayaa intay hoos u foorarsta bilowday inay oydo walaal iska samir ninkii dhalinyarada ahaa ayaa ku yidhi intuu saxarla garab ka taabtay dhibaatada iyo rafaadka saxarla haystay ma ahayn mid iyada uun ku kooban waxa uu waddanka oo dhan uu marayay xaalad aad u adag waxaa gobollada badankooda gaar ahaan wixii xamar waqooyi ka xigay ka socday dagaallo dowladda lagaga soo horjeedo qabiilada badankoodiina waxay samaysteen jabhad dowladda la dagaalanta waxaa gacantii dowladda ka baxay dhammaan gobolladii waqooyiga xabaddii dagaalka sidii ay u soo socotay waxay soo gaartay darafyada magaalo madaxda muqdisho waxaa habeen walba dadka dhegahooda ku soo dhacayay rasaastii iyo hubkii cuslaa ee ciidamada dowladda iyo jabhadihii mucaaradka ahaa ay isdhaafsanayeen dadkii waxay bilaabeen inay magaalada ka qaxaan iyagoo dhinaca galbeedka iyo afgooye naftooda ula baxsanaya habeen keliya ayaa uga harsanaa saxarla gurigii ay reer xaaji buraale ka guuri lahayd waxaa soo dhowaaday madaafiicda xaafadooda ku soo dhacaysay waxaa isugu timid cabsidii adduunka iyadoo ay weli maskaxdeeda ku jirto sidii xumayd ee ninkeeda loo dilay ayaa haddana khatartii iyada iyo wiilkeeda bilaal ay ku soo dhowaatay habeenkii 2 indhood iskuma ay keeni jirin iyadoo weliba aad uga welweli jirtay in bilaal hubkaas la soo ridaya uu ku dhaco iyadoo markii ay dhawaaqa madaafiicda maqashaba sariirta hoosteeda la geli jirtay bilaal ama dusha kaga seexan jirtay bilaal si ay iyadu xabadda ugu dhacdo habeenkii ugu dambeeyey ee muddada loo qabtay ee guriga kaga bixi lahayd ayay dharkeedii intii muhiimka ahayd iyo kii bilaal shandad yar oo cali hadda ka hor kaga tegay ku guratay sariirtii alaabtii iyo wixii maacuun u yaalay oo dhan waxay go'aansatay inay isaga tagto habeenkii inta aysan seexan waxay u sheegtay asli inay iyadu qaadato ama ciddii ay doonto siiso habeenkaas madaafiicdii iyo rasaastii la isku ridaayay way ka sii dareen waxaana la soo wariyey in guryo badan oo deriska ah madaafiic ay ku dhacday dad badanna uu ku leeday iyo in weliba qabiil ay dadku isku dilayaan oo suuqa maanicad la isku biraynayo habeenkaasoo dhanna waxay qolkeeda ka maqlaysay baroorta iyo qaylada dadka deriska ah ee dhibaatadu soo gaartay maadaama aysan meelay u kacdo ama cid ay maciinsato aysan garanayn waxay go'aansatay inay arooriyada hore iska baxdo oo dadka qaxaya iska raacdo cabsida jirta dadka badankooda guryahooda kama soo bixin intay bilaal ximbaaratay shandadeedii yaraydna gacanta ku qabsatay ayay albaabka ka baxday waxayna iska daba gashay dad deriska ahaa oo qaxaya waxaa dad ka muuqday anfariir iyo cabsi aan la malay karin carruurta gacanta laga haayo ee ooyeysa mooyaane cod kale iyo cid isla hadlaysaa ma jirin intii aysan 10 tilaab socon ayay waxay maqashay dhawaaq xoog leh waa madfac oo xaggeeda dambe ka yeeray markii ay gadaal soo eegtayna waxay aragtay gurigii reer xaaji buraale oo qiiq iyo olol ka baxayo dib ayay u orday si ay u eegto markii ay soo gaartayna waxay aragtay gurigii oo dhulka la sinmay marka laga reebo qolkii ay iyadu deganayd iyo jikadii bannaan ku taalay intii markiiba baroor ayay qabsatay waxayna ku orday meeshii ay qolal ku ogeyd oo qiiqaya waxaase markiiba ka soo gaaray oo soo qabtay dhowr qof oo deriska ahaa oo aan iyagu weli qaxin waxayna u sheegeen inay meesha isaga cararto si ayna iyadu meesha ugu dhiman kadibna waxay jaanta la qaaday dad qaxaya oo albaabka hortiisa maraya sidii ay dadkii u sii daba socotay ayay waxay gaareen meel baabuur laga raacayo nimanka baabuurta kireynaya waxay ku dhawaaqayeen afgooye oo ahayd meeshii loo qaxayay maadaama ay dadku wada qaxayeen dadkan iyagu baabuur wadan waxaa laga kireynaya baabuurta lacag aad u badan
saxarlana lacag intaas la eg ma bahaysan kadibna waxay iska go'aansatay inay iska lugayso oo nasiibkeeda jidka ka qaadato kaligeed ma ahayne waxaa jiray dad badan oo ay isku xaalad yihiin oo aan lacag haysan oo lugaynayay kadibna kuwii ayay iska daba gashay intaas ay socotay waxay meel walba kula kulmaysay xabad dhac boob waxaadba moodaysaa in dadka yaacaya tiradooda in suurkii qiyaamaha loo afuufay waxaa laamigii jidkii afgooya tegayay buuxiyey dad iyo baabuur isku xirmay dowlad dadka kala celinaysaa ama wax kala hagaysaa ma jirin qof walba waxaa u muuqatay inay dowladdii duntay waxa awooddooda muuqataana waxay u badnaayeen nimo jabhad isku sheegaya iyo kuwo aan cidnaba telin ee dadka dhacaya waxaa saxarla ku ooyey oo ay isku dhibtoodeen bilaal oo markaan weliba nin culus noqday oo siday ula ordaysay garbaha ka jibiyey waxa ay sii rafaadaba waxa ay ugu dambayntii goor casar ah ay gaartay magaaladii afgooye oo aad moodid in wixii xamar deganaa oo dhan ay isugu yimaadeen dadkaas oo qaarkood dhowr maalmood ka hor soo qaxeen waxaa ka muuqday dhibaato iyo daryeel la'aan badankoodiina waxaa ka dhammaaday wixii ay sahay soo qaateen waxayna dadka qaarkood bilaabeen in ciddii ka awood yar ay boobaan waxaa meel kasta yaacayay dhallinyaro hubaysan oo ay ka muuqato anshaxumo iyo nidaam la'aan waxay dhammaantood sheeganayeen inay jabhaddii yihiin oo ay dowladdii maxamed siyaad barre beddeleen laakiinse uma ekayn dad tababar ciidan iyo mid dowladeed toona qaba dadka soo qaxay badankooda waxay degeen duleedka magaalada afgooye kuwii dhowrka cisho joogayna waxay bilaabeen inay dhistaan buulal ee qoraxda iyo dhaxanta ka galaan maadaama ay rajadii ay xamar ugu noqon lahaayeen ay aad u yaraatay waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii badanayay dadka soo qaxaya meeshiina inta dadkii ka batay ayaa waxaa ku kulmay gaajo xanuunno iyo nabadgelyo la'aan waxaana dad badan oo awoodi karay bilaabeen inay u qaxaan dhulkii markaas dagaalada xamar ka fogaa sida kismaayo iyo waddanka kenya waxaana sii yaraatay rajadii laga qabay in muqdisho dib loogu noqdo inkastoo maalin kasta xabaddu ka dhacaysay afgooye iyo agagaarkiisa waxaa maalmo yar kadib soo gaaray dagaalkii weynaa ee xamar ka socday waxaana dadkii qaxootiga ahaa isku dul jiiray kooxo hubaysan oo is-eryanaya waxayna dadkii gaadiidka haystay ama kiraysan karaayay ay bilaabeen inay dhinacaas iyo jidkii kismaayo u baxaayay iyo kii baydhabo u baxaayay ku kala yaacaan dadkii lugaynaya ee aan gaadiidka haysanna dhinac kasta ayay iyaguna u yaacayeen iyagoo lugaynaya waxaa muuqatay in dad badan ay jihadii ka dhuntay oo ay xabaddii iyo madaafiicdii dhacaysay ay wereeriyeen waxay ahayday maalin aan la malay karin rafaadka iyo dhibaatada dadka ka muuqata waxaa meel walba daadsanaa meydad aan cidi aasaynin waxaa muuqatay in qaarkood xayawaanku sida eyda iyo bisaduhu ay dariiqyada ku cunayeen saxarla oo ka mid ahayd dadkii marba dhinac u cararayay ee gaadiid la'aantu haysay ayaa iyada oo bilaal xambaarsan waxay u oroday dhinaca jidkii kismaayo u baxayay waxay dhex qaaday boqolaal dad ah oo lafahooda la baxsanaya madaxa ayay mara ka saartay bilaal si aan u arkin dhiigga dhaawaca iyo meydadka jidadka daadsan waxaa jidka xanibay dad iyo baabuur isdhex yaacaya oo aan cid kala joojinaysaa aysan jirin qof walbaaba naftiisa ayuu la baxsanayay cid la hadlaysaa ama u naxaysaana ma jirin waxaa jidka hareerihiisa fadhiyey dad socodkii gabay oo daalan kuwaas oo u badnaa carruur haween iyo dad waaweyn oo dhaqaaqi kari waayey waxay ahayday maalin aad u kulul oo hanfigu dadka wejiga ka leefayo waa ay yaraayeen dad sahay iyo biyo ku soo tala galay dadka badankooda mar keliya ayay yaaceen markii muddo 2 saacadood ka badan ay roorayeen dadkii qaxaayay way wada daaleen waxayna u bateen kuwa jidka laamiga ah ka leexda oo hareerihiisa ama dhirta u dhow fadhiista saxarla ugu dambayntii waxay fadhiisatay geed hoostiis si ay xoogaa caano iyo biyo ah oo ay bilaal u siday u siiso bilaal waxaa ka dhammaatay oohintii intii ay saxarla la ordaysay waxaana ka muuqday daal iyo gaajo xaddaaf ah bilaal markii ay quudisayna saxarla markiiba way ka boodday waxay ka baqaysay in dadka inta socotaa ay cidlada uga tagto oo gabalku cidla ciirsila ugu demo meel kasta waxaa ka dhacaysay xabad horay iyo gadaalba waxa dagaalamaya iyo cidda ay la dagaalamayaan dadka badankoodu ma aysan garanayn inkastoo dadka badankoodu ay aaminsanaayeen in ciidamadii dowladda wixii ka haray iyo jabhaddii ay dagaalamayaan haddana waxaa caddayd in hubkii cid walba gacanta u galay oo tuug iyo diirato kastaaba ay dadka dhacayeen daawadayaal qaybtan halkaas ay noo joogto la soco qaybta xigta sheekadan haddii aad ka heshayna like saar sidoo kalena noo sheer garee buuggan ciddii u baahanna waxay ka heli kartaa barakaad bookshop